habeen wanaagsan Soomaali weyn waa idin salaamay meel kasta joogtiin maxaa la dhahaa waxaan rabaa inaan wax yar oo information idin la qaybsado dadka Soomaaliyeed meel kasta joogtiin information waa yani waxa sheegay waa wax information qofkii rabo aad dhageysanaya informationkeyga qofkaan rabinina waa iska dhaafaa haddaa ka heshid informationka aan kula qaybsanayo maxaa la yiraahdaa qaybi haddaa ka helinin iska dhaaf ha qaybinin marka maxaa la dhahaa dad Soomaaliya dacwooyin badan ii soo diray dad waxa waay ani igu xanaaqsan especially waxa waay dadka Somalilandiska iskugu wacay oo dhahay Soomaaliya ma ka mid yihiin dad waasaas oo Somalilandiska iskugu wacay ana la dacweyna ana la iga xanaaqsan yahay dadkaas ii soo diray message badan oo qeyle oo caytin oo aflagaade waxaa la ileeyahay xaasidnimo badan kugu jirto qabiilista tahay dadka isku dire dagaala kicine waxa soo dhan dadna waxa waaye dad aniga Facebook igala socdo oo xataa is aqoonin oo Soomaali qaybsaday maxaa la dhahaa videoyaalka hadda 3 video igu dambeysay oo ka hadlayay bilcaantan maxaa la dhahaa joogto Australia oo dhahayso oo beenta informationka beenta qaybinayso wax oo false oo jirinin oo been iyo maxaa la dhahaa u dhaaranayso maxaa la dhahaa Soomaaliya oo dhahayso waa u dhaaranay oo maalin walba in qarxinayna haddana cadeysanaysa in maxaa la dhahaa al-shabaab ay saacidsan tahay terroristan ahayo al-shabaab lacag siiya oo anaka idin qarxin maalin walbo duqdaas videoyaalkan uga hadlay marka dadka markay qaybsadeen waa la soo weeraray maxaa u qaybsanee waa taqaanaa miya noogay dadkeedaan la hadlaynaa dadkeeda maxaa la dhahaa u sheegaynaa qofkaan dhibaatay wadaa dagaalay soo wadaa dadkii isdilaayo dhibaataa keentay marka ani waxaa idin weydiinaa su-aashaydu waxaa waaye ani informationka aan qaybsanayo hadda dastuurka Soomaaliya oo kaleetood aan ka hadlay ani iyo maxaa la dhahaa dastuurka caalamiga oo adduunyada looga dhaqmo aniga ma anaa qoray dastuurka Soomaaliya aniga ma jeebkeyga kala soo baxay kaligee muna ahaan mase ma anaa qoray dastuurka maxaa la dhahaa adduunyada oo caalamiga yani qaynuunka adduunyada caalamiga oo adduunyada looga dhaqmo ma anaa qoray waa may marka adinka dadkan maxaa la dhahaa dhahayo Somalilandisaan nahay oo Soomaaliya waa ka baxsanahay jabhadda SNM oo hadda maxaa la dhahaa Hargeysa haysatay iyo meelahaas iyo berbero adinka waxa adduunyada ina ka dhaadhicisiin rabtiin yani dastuur aan jirinin oo weligeed la maqlinin dastuur aan weligeed la maqlinin oo la arkinin oo meel oo ka jiro adduunyada aysan jirinin adinka waxaa rabtiin in aad dadka ku qasabtiin adduunyada la soo hor istaagteen meel kasta la soo hor istaagteen adduunyada leedihiin waxaanayta sax oo dastuurkaana wadana noo qaaska dastuurkan aan wadanaa noo qaaska oo anaka aan wadanaa anaka samaysano jeebkeena kala soo baxnay marka waa ina igu raacdid
adduunyada leedahay adduunyada UN ko kaleetood markaa leedihiin yacni gobol Soomaaliya kamida 5 gobol oo waqooyiga Soomaaliya ku taala 5 gobol oo Ingiriiska gumaysi jiray oo Ingiriiska u baxsaday British Somaliland anigana Italy Somaliland kamid waa Somaliland wali fiiriya magaca fiiri Somaliland macnaha ii sheeg aniga Somaliland macnahaas maxay tahay waa wadankii Soomaaliya aniga jinsiyadeyda waay aniga Soomaaliya ka imid waa ku dhashtay Soomaali aan ahay waa jinsiyadeyda ma fahamtay adduunyada ay aqoonsan in Soomaaliya ay tahay wadan sovereignty wadan la aqoonsan yahay oo adduunyada og tahay inaan nahay 18 gobol Soomaaliya waa 18 gobol dalkayga waa 18 gobol dastuurkayga hadda meeshaan aan soo saaray videogaana ku dhagan yahay dastuurkaygana waa ku qoran tahay 18 gobol waaye dalka Soomaaliya waa ku qoran tahay dastuurkayga dastuur qabiilada Soomaaliya oo dhan ilaa waqooyi ilaa koonfur meel kasto qabiilada Soomaaliya kulli qabiilada Soomaaliya saxiixday ma fahamteen waxaana marqaati adduunyada marqaati nooga 121 wadan oo Ethiopia iyo Kenya laga bilaabo ay ku jiraan ayaga 121 wadan oo UN-ta ku jiraan marqaati aniga in Soomaaliya ay tahay 18 gobol adduunyada aniga iima marqaati furayso been iguma marqaati furayso ani hadda Soomaali nahay inta soo hor istaagay adduunyada yacni ma dhihi karo maxaa la yiraahdaa wadankayga waa 25 gobol wadankayga Soomaaliya waa 25 gobol ama 30 gobol ma dhihi karo adduunyada been uma sheegi karo aniga waa la igu qabsanaa sooma been ma u sheegi kariya laakiin hadda 121 wadan iig marqaati wadankayga in Soomaaliya intaasoo gobol ay tahay been ani iguma marqaati furaysa UN-ta iyo adduunyada dhan ma fahamta qof been igu marqaati furaysa ma jirto marka jaale adiga Siliano iyo dawladiisa iyo xulufadiisa habartaanayto maxaa la yiraahdaa bilcaantaas Australia fadhiso iyo dadka adinka idin lamid oo fikradaha adinka qabtiin waxa adinka jeclaysateen ra'ligiina waxa jeceshihiin iyo waxa adinka maxaa la yiraahdaa qaanuun adiga yacni dastuur adiga jeebkaada kala soo baxday ani ha iila imaanin ma iila imaan kartid adduunyadana ha soo hor istaagin oo meel kasta albaaba kasta ha garaacin Ingiriis oo aqoonso inta gabax Ingiriiska 60kii ka dhaqaajiyay gumaysiga waa ma fahamtay meel kasta tag ku adin buuraha ugu dheer fuul ee adin ku adin Soomaaliya laan baan la yiraahdaa wadanka madax banaana nahayay qayla dhaamis ma kasee qayla dhaami weliga qayla dhaami 26 sano aan been ku qayla dhaaminayseen oo meel walba taagneedeen oo isleedihiin maxaa la dhahaa inta ay maxaa la yiraahdaa wala weynta dhahdeen reer koonfurka anaga noogu wicisin inta isdilayaan oo qabdigta isku haayaan adduunyada is hor istaagana waana la aqoonsana taas ma soconayso Soomaaliya oo dhan isdishay Soomaaliya oo dhan dambi weyn iska gashay
oo qab digta feeraha iska cakiste adduunyada waa og tahay adduunyada waa og tahay un-ta waa og tahay marka adinka waxaa rabtiin jabhadda Hargeysa fadhiso iyo dadka hadda gabadhan maxaa la dhahaa gabarna ma ahane bilcaantan Ruweyda Faarax iyo dadka adiga camal oo YouTube kooda fadhiyo Somaliland diis baan ahay waa idinka baxsan oo calanka beenta soo qaatay waxa adduunyada ka dhaadhacsiinaysiin in wadan dagaal sokeeye ka jiro oo isdilaayo in jabhad ee meel oodato gobol Soomaaliya kamid ah oo ku dhawaaqdiin wadan gooniya taasa ka dhaadhacsiinaysiin adduunyada ma soconayso adiga qaynuunkaada waa ajaabka kala soo baxda adduunyada maxaa la dhahaa ma qabto qaynuunkaas marka hadaa meel soo istaagtid oo dhahdid wadanka aniga adduunyada ii marqaati furayso inuu wadankayga 18 wadan uu yahay aad tiraadid kama mid aha 5 gobol kama mid aha oo aniga wadankayga maanta waxa waaye 10 iyo 3 gobol waaye 18 ma aha qalad ka gelaysaa sharcigayga iyo aniga maxaa la yiraahdaa qaynuunkayga sharciga maarta Soomaaliya constitutionka Soomaaliya qalad ka gelaysaa maxkamadana lagu soo istaajinaa sababta hadda maxaa la yiraahdaa wadankan intoo dad meel istaaga ma dhihi karaan iskoon oo kale tood gobol la dhaho Sweden ma kamid ah wadankan gobolkan oo Sweden intaasoo gobol ma aha ma dhihi kartid adduunyada uga marqaati ah inay iskoona Sweden ka tirsan tahay waxay ku taalaa sharcigooda ku taalaa marka hadda aniga waxaan ku siinaa example aan ku siinaa hadda bil ka hor aniga video waan sameeyay inta oo uga hadlaaya badda Kenya iyo farageliska badda Kenya iyo Ethiopia iyo Kenya farageliska ay nagu hayaan laakiin Kenya isku dayday badda Soomaaliya inay nagu sheegato dhul badda ay nagu sheegato ilaa 2014 ay socotay 2024 dacwadaas ay bilaabatay Kenya maxaa ku jirtay marka caqligooda Soomaaliya inay isdildilayso dadkan waa kala daadsan yihiin inay kala daadsan yihiin dharbaaxsho ku sii dhufay maskaxda ha ka wareeraan ay ku sii kala daadi dhacaane dharbaaxsho ku dhufo iska dhacayaan Soomaaliya daciif waa tacbaane marka maxkamada soo saarna mudaharaad laga sameeyay meel kasta Soomaali meel kasta buuna lagu yeeray waa la doodnay maxaa kula doodnay sharciga caalamiga adduunkan kula doodnay in Soomaaliya anaka badeena jaa adduunyada ee ii marqaati furayso in Soomaaliya ay tahay maxaa la yiraahdaa 3333 iyo 33 isku maxaa la dhahaa meter ay tahay يعني waa qoran tahay adduunyada iga marqaatiya gal filinka maxaa la yiraahdaa oo gabadha Muna la dhahaayo ay aqrinayso Soomaaliya inta ay la eg tahay adduunyada go'aan ka gaartay mar hore 1900 sanadkii markuu ahaa jaa go'aana adduunyada ka gaartay badan inta Soomaaliya inay tahay maxaa la yiraahdaa 4 inay tahay 3,333 badayda waayo Soomaaliya haddii qof igu qabsado taas qofkaas waa tuug waa criminal waaye Kenya criminal ee Kenya waxa istimaanta hawada Soomaaliya UN ku dhiibtay sababta anaka hawadeena markay Soomaaliya dagaal ka dhacay Ethiopia looma dhiibi karo sababta Ethiopia anaka maxaa la dhahaa historical enemy anahay dad waxa waaye maxaa la dagaalna dhexmaray Kenya laakiin anaka dagaalna ma dhexmarnay wadanan Kenya ku leenahay xataa ma fahamt oo maxaa la dhahaa Soomaali Kenya jirto NFD da Soomaali Kenya Kenya kamid tahay
laakiin waa dal Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed way og yihiin laakiin Kenya kamid tahay Ingiriiska wuxuu xariiqo waay waxay isdhahaan bal badnana ku darsay si riixada waa u socoweyse hadda duu ilaahay yiraahdo September la isku soo naqana laakiin jawaab ogaadeenba in waa waalahiin sababtoo ah kana adduunyada iigu jirta waa wax go'aan jaa adduunyada ka gaartay ani say ii soo marka gurigeyga inta timaadid ani oo ani sabar loogadeeda warqadaha ani ii qorayiin say ani iigu dhahaa malihida anaa kula leebal xagga u durug booskan macquul ma marka bal fikir adiga aniga ma wareersan oo sharciyada adduunka ogeyn mase adinka dad burcad oo siyaasad burcad ah oo rabtidina aniga iboobtid sababta aniga Soomaaliya ahay gobol Soomaaliyeed ay leedahay Soomaaliya ma aha bas anaa goostay wadankan oo calankeygi aniga calankeygi Soomaaliya calanka bluega xiddigta cad oo naagtas hadda ugu wacaysa qormoonka calanka calankeyga dejisa calankeyga markaa dejisa aniga anaa weerar igu qaad ani jinsiyadeyda dejisay jinsiyadeyda oo Soomaali ah dejisay ma fahamta jinsiyadeyda dejisay taasna qaynuunkeyga ku qoran tahay hadaa calankeyga aniga gubtid ama calankeyga wax ku sameysid saas oo kale tood sharciyaan leenahay qaynuunaan leenahay waxa way kriminaalaad tihiin Siliano iyo dawladiisa iyo xulufadaas waxa waaye waxa dheelaysaa markaa yaryareen waxa ku dheeli jirnay boombalo oo maaragta alaabay boombalo maaragta ku dheeli jirnay alaabta maaragta la sameeyo oo maxaa la dhahaa caagaga laga sameeyo boombalayaasha ma ogi boombalo inaa ka saysiin wax kale ma ku aqaani boombalo يعني alaabayda ilmaha hooyo aabo iyo wax boombal oo maxaa la dhahaa asnaabta camal samaysan masawir samaysan oo caag oo naagti male aabo hooyo cunug yariis oo babies adinka waxaa tihiin nimanka Hargeysa jooga waxaa tihiin nin oo boqor dheelaayo boqora dheelaysa alaabay dadka masaakiinta hayna waxay naqdeen alaabay boombal oo lagu dheelaa aabo hooyo wax isku dheelay meela inta dad ku xiratay maxaa la dhahaa ku dheele waa ciyaaraysa waxa dheelaysiin maxaa la yiraahdaa military maxaa la dhahaa jamhuuriyadda Somaliland waa dheedheel waa tiyaatar waa tiyaatarka Muqdisho anaga waxa ka socday sheekooyin aad u cajaa'ib leh adinka hadda marka Hargeysa iyo Berbera iyo meelihiina waxa ka socdo tiyaatar waxa waaye cajaa'ib ka socdo waa dheel waaye dheel waaye waxa dheelaysaa boqor iyo askar iyo difaacada boqorka oo tiyaatar waaye marka macquul maaha taas dadka يعني هذا هتلر ilma yar intuu meel ku xirtay dad wuxuu ka dhaadhicsiiyay dadka timaha madoobo dhan bilaadan caadi ma aha bilaadan sharaf ma laha bilaadan ma xuquuq ma leh yahuuda wuxuu ka dhaadhicsiiyay hala laayo maalkoodana hala dhac waxay yihiin mala dadka cadaanka bis timaha cadla oo dhaha bluega leh adduunyada ugu fiican weerar lagu qaado hala dhameeyo saas oo maskaxda dadka galiyay information been oo propaganda waa u sheegay marka informationka falsada maxaa la dhahaa ilmaha yararka maskaxda uga shubteen ka dhaafa sababta ilmaha markay wax aqristaan hadhowti oo taariikhda Soomaaliya soo ogaadaan waxay ogaanayaan inay been tahay waana aqrisa doonaan dadka aniga hadda waxa u gubanaysiin oo dadka aniga videoyaalkayga qeybi loo weeraraayo dagaalay bilaabay ma jirto aan dadna mala dagaalna ma rabo aan waxa meesha u fadhiyaa informationka u qeybinayo waxa waaye in dadkayga ay heshiiyaan in wadankayga waxa ay ula dagaalaysiin kaliya waxa waana inaan rabo midnimada Soomaaliya
أنا صومالية وليجينا صومالية هدا حتى دين تبدشو أنا إنجيل من سنة هاي سامبري صومالية هاني صومالي نمدي إذا أنا مجوريسو أنا أذنك عمل مؤفكري قفك دو دين تبدشو جنسيتي ما بدل ميس هدان انت حتى صومالية أنا مركان انت حتى وليجي صومالية هاي ما فهمتين أنا أذنك عمل مئي هو جنسية بدلنا وليلة دقالي محل ده حكم كيا سفي عنا محل ده حكم كنا لمسيني أما باور شيرينك محل ده حكم كسفي عن لما قيبسن عدالة دران ولكعي وحا صوتنا وامقلا أنا مركزتو وحا كدوديسين وانا لباب وانا لحسوقي قبيلك لحسوقي مجري ولا تود حسوقي dadka la xasuuq ana ku sheegay dadka la xasuuqaya waa makase dadka baay bakool dadkaas la xasuuqay waa la xasuuqay yaa xasuuqay USC yaa xasuuqday jabhadda USC aa xasuuqday ciidid hoogi baay oo dhigi waa la ogaa jabhadda USC jabhadda beesha hawiye ka soo jeedaan USC waa هوجي بقى يسمى عجبوري ولا أوجي حمر هوجي بقى دتك وحاجة كانن تمرسيب تيتين طلال ما مقشي جباي صورته تمرسيب تيتيل طلال دتك سياد بريك شيء جنا سياد بر تمرو بقى تيتين أبنا لو طلال يا واي تيتين كا جاب هذا هوي أو USC ده تيتين ما كسر تيتين كقطحها لو ساس دوكو تابتو كودح جلايو تيتين هوجي بقى سمايا dadkaas la xasuuqay ilaahay waxaan ka baryaa maalmaha kamida inay maxaa dhahaa fikiraan ee dhahaan maxaa sameeyne oo toobad keenaan oo u tagaan dadkaas masaakiinta ah beeraleyda ah dhibaatada loo geystay iyo xamar dadka ku nool ay dhibaatada loo geystay in odayaalkiina hadda reer hawiye meeshaas joogo xamar inaa ka gurguuratiin waayo ilaa baydhabo ma fahamta ilaa baydhabo aa gurguuratiin iyo afgooy iyo kismaayo iyo meel kasta oo bilada dahaba u geysiin oo raalli ahaada walaalihiin dhahdiin hoogiiba meeshaasaa genocide ka dhacay laakiin ma arkin ayagoo meelaha ordaayo albaabada adduunka garaacaya waana la xasuuqayay waana la baabi'iyay waa go-aynayay lama arkinin marka haddaan usoo noqdo taariikhda faalsada ah oo beenta ah oo hadda habartaas meeshaas fadhisay ee ku hayso waa lay xasuuqay suuq filimkeedan ku daaraa suuq waxay leedahay naade daawa marixaankii ay xasuuqay waxay xasuuqay majeertaan ay xasuuqay wala weyntii baan xasuuqday riixa markii soo bamba naguma garaacinin wax bamb beenta ha sheegin waxay raadin daaraa filimkeeda waxay soo gelisay dilo xun riixa mara oo afsoomaaliga garanay oo laba qaraxa waa aniga iga sheekadeen dalkeeda la qarxinayo lagu qarxinayo maaragtay al-shabaab thanks God Somaliland wala dilay airportka la soo dago dakadeedi maxaa ka qoseeya anaga xawartina xasuuqday meelahay tideerada ay ruushaysan meelahay tidadkayga xasuuqday meelahay tidadkayga laysan meelahay tiqabiilka ilaysa isaaq ahaan madaxda ilaysa meelahay meelay gowracay siya barnaamij lagu soo deeyay maalin walba qarxiska mayaga hadli kara ولا فرماجو think about it yourself a fucking idiot قال إسكاك كفكر دولكينا كفكرة دولتنا كفكر وسيرنا وهو لقرحنا يدقى إسكرانا عميد الصعدان بقى fucking you know Somali type وسومالندي fucking idiot ودي دريا سحنا سومالي لا سوماها سلا سوفوريما وين قحسكيننا for your life أي صار يكون قرحنا Somaliland weeyaan ragayna qarxiyaa shabaab waa Somaliland marka qofkaas information false ah ay qaybineen wax
isaaq ahaan dadkaas ku weerara ma jirto qabiil ma ahayn siyaad barre dagaalka siyaad barre uu ku qaaday waqooyiga haddana fiiriya waqooyiga soomaaliya ma ahayn dagaal isxaaq lagu qaaday maskaxdaada geli haddaa adiga maanta qof maxaa la yirahdaa caqli leh oo fikiraayo oo maxaa la yirahdaa sharciga adduunyada la socdo aad tahay waajib waxaa kugu ah in aad taariikhda soomaaliya soo baartid waajibay kugu tahaya intaa habartaasayto dacarta ma tagayso aad dhegaysa lahayd waajibay kugu tahay sababta habartaas waa warlord waay waa warlordkana yacni ninka dagaalamayo oo dhiig cabka ah oo afmiishaarka oo kaabalaadarka ayada camal ah ee silyaanoo kaleetood waxay baafiyaan taariikh faalsa ah oo waxba ka jirno been ah taariikhda hadda ay sheegayso xamaraa bam ku garaacay mareexaana ay dhameeyey kanaa naga dhacay bug waaye waa wax ka jira ma jirto anaa kuu sheegay waxa qoran taariikhda soomaaliya siyaad barre nin dictator u ahay dowladda siyaad barrena dowlad qaran ee ahayd qabiil kasta oo soomaaliyeeda ku jiray dowladda siyaad barre jabhado badanaa ku kacay jabhadda cabdulaahi yuusuf oo kasoo jeedo maxaa la yirahdaa dadka daaroodka ah majeerteenka jabhadaasaa ugu horeysa muxuu ku sameeyey siyaad barre ceelasha sun ugu dira ilmo xoolo waa ku dhammaadeen suna ugu shubay dad isxaaqaa ku jira dowladdaas oo generaalyaalka ahaayeen qof anigu qabsada ma arag oo dhahay hadinkaa ku jirteen sunaa noogu shubteen ceelasheena ilmaha qaxa iyo xoolase u socdeen duurka markay ceel heleen ceelkii biyihii kacbeen ceelka waa sun waa ku wada dhammaadeen ilmihii xoolihii wixii dhan taas waa taariikh qoran taariikh dadka jabhadaha soomaaliya kuu sheegaa maxaa la yirahdaa snmka waqooyiga ka imaatay siyaad barre jabhad uu la dagaalamayay lama dagaalamaynin qabiil isxaaq la dhaho oo waqooyi degan sidee hadda beenta ee faafinaysa naagtan lama dagaalamaynin yaa qabiil ma ahayn soomaaliya oo dhan aa ku jirta dagaalkaas siyaad barre jabhadaasuu daba socday marka cabdulaahi yuusuf jabhadiisa hadduu la fadhiisa lahay boosaaso bal ka waran boosaaso hadduu la fadhiista meeqaa dhiman lahayd boosaaso oo boosaaso dhex galo bari hadduu tago bom maa lagu ridi lahay mahano marka cabdulaahi yuusuf etoobiya uu joogo jabhadiisa soomaaliya soo geli jirtay meelahaas wax qarxiisa yani ciidamada ay raadsan jireen dibadday ka joogeen marka silyaano taariikhda qoran waxa waaye in 84 dagaaladii ka dhacay meeshaas ayagaa dhex galeen hargeysay dhex galeen meelahaasay galeen dadku saas ugu dhex wareegsanaya dadka lama dhex galo shacabka lama dhex galo jabhada hadday shacabka dhex gasho shacabkaa meesha ku baaba-ayo waa la ogaayay siyaad bara askar badan u diray 84 meeshaas problem badanaa ka dhacay waa sii socotay ilaa 88 diyaaradihii ugu dambeeyey diyaaradaha nimanka soomaaliya qaarkoodaa diiday oo dhaheen ma aadayno dadaa ku gabiyey oo dhaheen dalkaada difaac diidi maayo isaaq u duuldooni maayo dadkan jabhadda meeshaasay hargeyso dad cisaaqaha joogay naagtan waa waxay sheegayso laakiin jabhadda maxaa la yiraahdaa siyaad barre jabhadda uu daba socday naagtan waxay sheegayso waxba kama jiraan jabhadda uma soconin siyaad barre uma soconin hal qabiil uma soconin reer waqooyi u socday marka waa fahamsanahay waxa ay sheegayso sababta dhibaataa ku dhacday waxay leedahay dadaa layga dhameeyey qof kastaa dad laga dhameeyey isaaq kaliya kuma dhimanin isxaaq kaliya lalama raadsanin xabadda ma fahamta okay reer isxaaqa u badan hargeyso waa fahamsanahay laakiin dad kalea meesha joogay
dad kalaa jooga eriyadaas oo Soomaali ah jabhadda aana loo socday qabiil laguma duulinba qof isxaaq ku duulaya ma jiro ma rabin inay ku duulaan dadka isxaaq laakiin siyaad bare dictator u ahaa Soomaalina waxay dhahdaa qaniya ka fujiso qaniya ka fujiso waa Soomaalida ma hasi dadka Christianka oo kale tood qofkii dhawanka ku dhufta dhawanka kale u gadiyo u duceey kii ku habaaro ma fahamtay adduunyada jabhad dawlad kasta markay jabhad ku dhalato jabhadda waxa la yiraahdaa hubka dhiga ku soo darsama dawladda haday diidaan wal dawlad inay ku duushay xaq u leedahay oo jabhadda iska qabato ma fahamteen marka taariikhda been ee sheegay mid kale tood waxay leedahay meeshan aadan cabdulle cismaan ee leedahay ilaa waagaasaytaana la dilaaya ما فهمت بين واي آذن عبد العثمان وحو آذن عد وحو سمي مجرته نينك صومالي لو وجه عليه أهاي نينك وحو أهاي أفريكان كليو حكم كدقي تدرس أنا ميلاس عمل وحكم كسارنا وكدقي شرم أركا كحيجي دور بلاد عمل وابل الدلب مركا wax ay sheegayso taariikhda Soomaaliya ma ku jirto ma fahamta waa falso marka ninka dictatorka ah maxaa la yiraahdaa habartan warlordka dadka waxay u sheegaan sheeko aan jirin sida lagu xanaaqo sida cuqdad aday ku gasho sida xanaaq ku galo sida ugu dagaalantid oo hub u qaadato oo dadka kale tood u nacadid oo baabiisid dadka kale tood saase beenta u sheegay sababtu xeerta dadka inay hubeyso dadka inay xaasidnimo geliso dadka inay colaad geliso kaas videogaas kaliya ma aha videogan kale tood hadda arag الحمد لله إذا أنت هذا سنة سمرين وانا 6 years ما نقول نقول فكرة ما وما يا أدنى نقول فكرة ما بتشوف إدود الكين اللهم صل على محمد حماك تام بتشوف دل كين ويسكم من ترى لو يبغى هاي ترى لا بد تور حناقي من ترى لو بهاي الرزق لو بهاي وحوير معارض ميهي معافد ميهي أنا وحنا قفرك كسر هذا السوريال تقدرت كوشي الصومالي ها بينا ضدك وشيكتا ورانيالو مرتلو يروح في عين وضع تير برعبدات كشيرا كدلك إن لا برعبدات هاي أصلا قبصة كلام مراكبته إدو غير سالم مجتو يمن إذا بسيطو بختيسة سعودي بدو غير يا سعودي إذا ما كان unbelievable واي marka habartan فيديويال بدن وساس ودعر إيه متجيسا أبتالو مركو إلا سويدي واي محي أسميني وحاس إني دتك كعسو سببت هدي المها لوش يقول له والقبيل كاس وولالكا إن صومالي واسمنها قد ولالنا هاي قبيلة ذاك ولالها دارود وولالكا إسحاق وولالكا هوي وولالكا إن كل دتك دن ولالو واي رحوين وولالها جرير وين وولالها رير حمرك محالي رير مقدشو وولالها dadka dhan walaalaha waaye Soomaali weynaan nahay hadii saas loo sheego ilmaha qof hub qaadanaya ma jiro qof kale tood ku duulay qabiil kale tood ma ogta hort hadii loo sheego walaalaan nahay wax ku duulay ma laha hadii la dhaho Soomaaliya waa isla leenahay aabiyaalkeena horaan ka dhaxalna wadankan dhaxal awoow waay heesta ma xustay dhaxal awoow wayna tahay soo ma ogid heestaasayta qatar waay dhaxal awoow waay marka dadkan warlordka ah waxay sameynayaan beena la abaabula ana ku sheegay been inay abaabushi Soomaalida Suudaantooda ka fahmay taariikhdooda waxa ka fahmay muusiga ka fahmaysa taariikhda heesan ku daara oo ka hadlayso ku tusayso in maxaa la dhahaa
dagaalka waqooyi ana dalka recovery banaadir dagaalka waqooyi aan dhahnaa waqooyina dad badanaa degan qabiilo Soomaaliyeed oo badanaa degan badanaa degan hadda 5 gobol 3 gobol iyo bar qabiilo kaleetooda degan dadka ayada ay sheegayso wadankeena ay ku jirto hadda ayada gobol iyo bar iskugu imaanaya waqooyiga galbeed iyo maxaa la dhahaa tubdheer oo haaf waay gobol iyo bar iskugu imaanay runta la rabaaya sababtana waa aqaanaa gobolada Soomaaliya intaan ka hadlaa maalin kasta Sweden iyo qabiilada buugaa jiro maxaa la dhahaa gabartan soo aqriso buugaan hadda fiiri qabiilada waxaa la dhahaa qabiilada Soomaaliyeed iyo tartanka Soomaaliya iyo tartanka buugaas waa kaasaha qaarada Soomaaliya waa kaasaha fiiriya Soomaaliya gobolada dhan ku qoran gobolada dhan inta gobolay tahay magacyadooda waa kaasaha Soomaaliya 7 number 7 waxaa ku qoran qabiilada Soomaaliya oo dhan waxyaabaha ay isku dagaalaan meeshay degan yihiin qabiilada say iskula dhashteen magacyadooda kulli buuga waa ku qoran buuga ani aan isticmaalo waayo 10 aan ka dhiibo marka Swedish Maaliga casuumaan booliiska iyo social service-ka iyo waa uga sheekeeyaa Soomaalida qabiiladooda iyo waxyaabaha colaadda ka dhaxaysa iyo sababaha colaadda keento Soomaaliya waa aqaanaa meeshay degan yihiin qabiilada Soomaalida goboladooda waa aqaanaa marka wax qarsan ma jirto qof boobi kara ma jiro maantana dastuurkeena ku qoran tahay qabiilka ku doodi kara ma jiro dastuurka ee ku qoran tahay dadka dil oo dastuurka maxaa waaye dastuurka anaga qoranay anaga Soomaaliya qortay ma fahamteen qabiil kasta Soomaaliya qoray adduunyada iyo UN-ka la soo hordhigay English Arabi wax kasta Itaali wax kasta ku qoran yahay meel kasta taala qof kasta aqrisan kara wax qarsan ma aha aqrista marka soo gata idin dhihi lahay waxyaabaha Soomaaliya taariikhda inta qofkaan oo kala dhageysanina heesa idin daara oo ka sheekeynayso maxaa la dhahaa taariikhda waxa ay sheegaysa naagtas been inay tahay cawada ku tusaani fiiriya waa propaganda
silo taxabay tijaarti miya dablo xiray aqoonyahan miyay difayaan maculimaan dhimana noolay madila qalba baxaysa madigi dadka qulqulaya madila qalba baxaysa madigi dadka qulqulaya durwaya miya cabaya marka waxaan weydiinaa marka dhammaan reer waqooyi maxaa waaye dhammaan reer waqooyi yaa degan waqooyi waa in la isweydiiyo waqooyi yaa degan ma isxaaq bisaa degan sidee hadda bilcaantaasayta ee leedahay isxaaq kaliyamaa degan reer waqooyi saan idiin sheegay waa 5 gobol oo ingiriiska gumaystay 5 gobol waaye 3 gobol iyo bar Soomaali kala degan oo maxaa la dhahaa rabin inay go'aan Soomaaliyan kamid nahay la taagan sidii maxaa la dhahaa odayga oo dhulbahantaha maxaa la dhahaa dhulbahantaha boqorkooda ayaa hore inta idinka tusaay wuxuu dhahay aniga shaqo kuma lihi hadda shirka leetooda laga qabtay ma fadhi kari meesha hadda ma idin tusi kari waxa waqtiga ugu dhamaanayo ee dhahayaan Soomaaliya gobolada Soomaaliya kamid nahay gobol Soomaaliyeed aan nahay sool iyo sanaag iyo ma go'ayaan waa meeshii aniga reer koonfuraan ah waxaan ognahay taariikh anaka noo reer koonfur in maxaa la dhahaa sayidka meelaha iyo daraawiishta kasoo asalkoodii meesha kasoo baxeen waaye waa meel aad u muhiim ah Soomaalida taariikhdeeda sanaag iyo goboladaas sayto iyo
saylici aan maqli jirnay maantana maxaa la dhahaa ilaahay jaanis wuxuu ii siiyey inaan barto dadka walaalahee oo meelahaas degan oo laga sheekey jiray sayidka meeshaas u ka yimaada daraawiishta ciidamada soomaaliya oo maxaa la dhahaa ingiriiska jebiyeen oo talyaaniga meelahaas kale saddex albaab ay la dagaalamayeen daraawiishta ingiriiska talyaaniga etoobiya meesha ay kasoo baxeen waaye waa ciid oo maxaa la yidhaahdaa qudus ah ciid waxaa waaye soomaalida howli u ah qudus u ah dadka wadanka maxaa la dhahaa gumeysiga la dagaalaya meeshii laga soo aas-aasay waaye ma ka go-ayso soomaaliya ma rabaa inay go-aan waa dhaheen maalin kastay dhaheen waa ku adimaan maalin kasta sanad kasto laakiin jabhadda hargeysa fadhiso waxaasi ka ah walaa waxaa ka qaldan dadkaas ma maqlaayaan mana xishoonayaan mana yaqaanin qaynuun adduunka looga dhaqmo dadka been xaaraanay ummadda ku haystaan runtii yacni waa tuuganimo waxa waaye wax cad waaye gardarra qayaxan waaye waxaan ugu wadiin waxaa igu wadiin ani shaqsi ahaanteyda gardaraan u arkaa sababta aniga qaynuunkayga ku taalaa in wadankayga 18 gobol oo yahay adduunyadan ii marqaati furayso been adduunyada igu marqaati furayso UN-ka adduunyada igu marqaati furayso marka adin intaa timaadid ani indhaha ma iga geli kartid oo indhaha faraha iga gelinin ani indha sarcaad ha igu ridin maalin cad anoo fadhiyo adduunyada meel kasta lasoo istaagaya soomaaliya ma ahan waa jaar baanu nahay wadan daris ahaan nahay ma soconayso sharciyaa jira adduunka aday waxaa samaysatay iyo waxaa rajaysatay iyo waxaa rabtid iyo sharciyada adduunka ka jirna waa kala nuuc taariikhda beenta ah hadda waa ka saada heesteeda waa dhammaan reer waqooyi waa reer waqooyi haddii la dhahana adinka layda fiiriyana minority aa ka tihiin meeshaas dad yar aad tihiin haddii laysku fiiriyo dadka kaloo soomaalida ah fahmaya marka aniha isku kay baacinin markasto aniga informationka meeshaan ku qoran kula qaybsanayo oo adduunyadana og tahay wax kale kulama qaybsana I'm just giving information marka walaalayaalow halees nabadgeliyo aniga qof weynaa ah dadka intii loo tago lee gabadhaas naga qabto adinkaa taqaaniine ma jirto ani qof qaangaar aan 18 sano qofka hadduu gaaro 18 jir qofka hadduu gaaro qofkaas waa qof qaangaara qalad haddaan kaa sameeya aniga oo aniga u aragtid inaan sharciga jibinayo Sweden ani qaynuunan leeyahay Sweden sharciga aan jibinayo Sweden booliiska igu dacwi kartaa laakiin sharcaani aan jibay ma jirto anigana hargeysa ma joogo meelahaasaytana ma joogo kaybalkayga aniga ma qaadan kartid yaa kaybalka odagaas uu sheegaya maxaa la dhahaa kaybalka naga qaateen u dhahay kaybalkayga ma qaadan kartid ani Sweden aan fadhiyaa meel waxaan fadhiyaa maxaa la dhahaa dimuqraadinimo ka jirto cadaalad ka jirto aan hadli karo marka kaybalkayga ani ma qaadi kartid hadaa isku dayda xataa hargeysay meelahaas dadka joogo ka qaad oo informationka dhan dadka raadiya beena u daar oo balaayo uga sheekay laakiin ani ma soconayso meeshayda marka walaalayaalow halees nabadgeliyo okay halees nabadgeliyo aniga waa hadlaa waxaan rabaan ka sheekaynaa information aniga waxaan dhinacayga waxaan isku arkaa aniga inaan soomaalida ka badbaadinayo qabyaalada iyo isnacaybka iyo maxaa la yiraahdaa mas-uulnimo isaaran ani mas-uulnimo isaaran ma fahamta Soomaaliya ahaya mas-uulnimo isaaran mas-uulnimada isaaran waxa waaye waxaa rabaa Soomaaliya dadka ku dhalanaya dadka koraya maanta Soomaaliya ku sheega Soomaaliya oo dhan inay nabadgelyo ku noolaadaan ani Soomaalida aan ku soo koray xasuustaa si u fiicneed isi ka fiican boqolkiiba ka si fiican inay ku koraan ee wadankooda haystaan ee xor u yihiin oo bani aadan fikiraya cadaalad ku dhaqmaayo dimuqraadinimo ku dhaqmaayo saasaan rabaa ani mas-uulnimo isaaran inaan u sheego dhalinyarada Soomaaliyeed
inaa maxaa la dhahaa dhaxashi anaka awoyaashii nooga tageen wadanka anaka intaas wadankaas barwaaqada badan ay noo celiyeen intaas badda saas u weyn inaan uga tagno waayo dhaxasha inaan sii dhaafin wixiina la siiyey dhaxashi aniga legaaga tegay inaan sii gudbiyo waayo generationka soo socda inaan usii dhiibo maaha inaan ka baabiyo oo haafna ka gado carabta iyo maxaa la dhahaa aan wadanka hoogiyo ba-aan ka dhigo dadka jalaafa u dhigo ilmaha soomaaliyeed sababta dadka war loodka ah jalaafa u dhigaayo dadka ilmaha yaryarka ah jalaafa intii lagu dhigaa meel bam ku xiran yahay saas bam ugu dhacee kula booday saasaa jirto midda kale waxaan rabaa inaan idinkugu dambeysiyo dadaa waxaa jira ka cabsanaayo maxkamadda sare oo soo socoto maxaa la dhahaa Supreme Court ha ka cabsanin tuuga kaabalaadarkaa ka cabsanaya sababta in la xisaabinayo ogyahay adi waxaa ka cabsanaysid male waa ku ilaalinaya xuquuqdaada maxkamadda sare haddii madaxweynaha qalad ku kaco way kaa qabane ra-iisul wasaaraha hadduu qalad sameeyo waa kaa qabane maxkamadda sare adiga xuquuqdaada ay dhowrey anay ii hiilinaya oo shacab ah maaha ani kaliya oo reer banaadir ah iyo qof maxaa la yiraahdaa qabiil hebelow iyo qabiil fulaan maaha soomaaliya oo dhan qabiilkaa rabtid ahaaw maxkamadaas way kuu hiilineen soomaaliya waa lahayn maxkamadaas wax cusuba hadda cirka kasoo dhacay ma aha siyaad bare waa lahayn maxkamadda sare laakiin siyaad bare dictator oo ahaa asaa wuxuu rabo ka sameysanaya maxkamadaas markasta soo rabo yeeli jire waxyaabaha qaarkood ka isticmaali jire waxyaabaha kaletoodna yani soo rabo samey jire laakiin hadda dimuqraatinimaa jirto maanta nimanka joogaan waa ogyihiin inay dadka u shaqeeyaan maxaa la dhahaa kheyre iyo farmaajo hadda farmaajo asaa noo maxkamadda sare asaa Supreme Court-keena asaa dadka dhahaya qaynuunka waa in lagu dhaqmo qaynuunka hadda kuu sheegaya waayo ani idhahayo wadankeyga waa 18 gobol gelikaas maskaxdaada ku rid 18 gobol waa wax kale hadaa sheegtid ama dadka been kale u sheegtid sharciga jibinaya adduunyada lagu soo hor istaajina marka qaynuunka adiga oo ku dhowraa dadka qaynuunka aan rabin waa tuugada waaye ma rabaan qaynuun musuq maasuq inay ku socdaan inay dadka dhacaan inay ummadda qiyaameeyaan intaasayto ay rabaan soomaaliya hadda runta idiin sheega ani soomaaliya hadda sida habartaasoo kale dooda qarax anaga idin qarxino dadaa waxaa jirto dan ugu jirto tuugo oo waxaa jiro soomaaliya hadda daroogada ku abuuraan kenya say rabtay u timaadaa diyaaradeeda soo dhexgalaan daroogada meel kasta ku abuurayaan marawaana iyo bakti aan la kasayni qurna naloo keenay wadankii oobiya Afghanistan hadda nimanka al-shabaab waxay keensadeen nimanka maxaa la yiraahdaa maxaa la dhahaa kuwanayta Afghanistan iyo Pakistan joogaan Talibanka oobiya ee wadankooda ku abuuraan dadkooda darooga u dhamaadeen Soomaaliya gobolada waxaa lagu beeroyaa baa iyo bakola lagu beeroyaa lagu abuuraa al-shabaabna waa ka beec mushtaraan dada malaayiin dollar ka sameeya wadankeena si u qasan yahay kan badda dhuuqaayo oo meeshaas maxaa la yiraahdaa bari maraakiibta la fadhiyo oo dhuuqaaya badda dada interest ugu jirta oo rabaan wadankeena inuu jajabo inay qarax ka dhaco 4 saac ayagana markaas hadda Ethiopia oo kale tan soo haweysato Kenya waan soo haweysatay marka Soomaaliya aqal haday leedihiin isjeclaada dad walaalahatiin dad isdhalaatiin isjeclaada wadankiina ku dhaga dhaxashi leedin kaaga tagay anaka noogla tagay hadda ana runtii waxaa isleeyahay ilmaha soo socda generation soo socda ma gaarayso sababta kuwa hadda joogaana baabiinooyin al-shabaab oo kale tood waa ka saa ilaahay haydan barakeeyo Soomaaliya ha noolaato waqti dambe waaye dadka maxaa la dhahaa idhahay aniga beena sheegayna hadaan been sheegay aniga soo aqri qaynuunkeena bax waa ka sameeysan ku soo saaray soo aqri sharciyada adduunka ka jirna bal soo ogaaw oo waxa sharciga adinka idin dhigaayo ina wadankeyga
naagta hadda waxay sheegaysaa dalkeena Soomaaliya anaa iskale maxaa kaa gala maya anaa iskale qof kastoo Soomaaliya ana ila leh ani qof xamar ka xiga ma jirto banaadir ka xiga ma jirto qof kastoo qaynuunkii ku qoran tahay qofka Soomaaliga meeshoo rabo oo ka shaqeysan karaa meeshoo rabo ku noolaan karaa qof ku diidi kara ma jirto Muqdisho ama Hargeysa ama Berbero ama Baydhabo shaqsiga shacabka Soomaaliya meesha rabta tigi kartaa marka qof ima dhihi karaani goboladaas malihido ana iskala hodarisaana farraq beenta waay criminal aanu tahay marka soo aqri aniga marka ideh beenan sheegta ana dan been sheega xitaa qaynuunkayga been kama sheegi karaan oo ay qabana sharciga moogta taas qaynuunkana sharciga dastuurka Soomaaliya qof walba oo Soomaaliya uu difaaca wuxuu ku siinaa xuquuqdaada ilmaha waa ku qoran tahay xuquuqda caruurta waa ku qoran tahay Soomaaliya ha noolaato nabadgelyo